بسم الله الرحمن الرحيم عدين بيج لو aad soo baranay referenceska waynu iska dhaafi karnaa iyaga laakiin mailinkaas aynu yar ka eegi doonaa envelopes iyo labels envelope ka xalaysa marka waraqaa yar sameynayso imka warqad yar oo info soo kala ayaad isticmaali kartaa markaas aad halkan ku qori kartaa envelope kaaga kadib markaas aad doonaysaa qoraalkaaga intaad qorto halka ka qaab ku soo baxayso waad arkay halka aad ku qoraysaa inta markaas aad samayso ayaad oranaysaa halkan markaas aad samayso waxa oo dhan badada art document hada dhawaad arkiso deynta meherad waad arkaysaa intaas leekaas warqadii dhan ee fortay ay saawo kala jarmaysa marka mail envelopes walaalo oo marka la isticmaalo halkan ku qoraysaa waa 12,000 oo shilin deynta gaarka ah kow bariis laba sonkor taasoo kale macne markaas wada oranaysaa art document hadaad sida doonaysid ku saarto print wada art document hada wada arkay qoraalku markastoo sii socdo isaga kor u kacaya markuu sii socdo basan uu sii kacaya labelskuna waa maxay labelkuna waa isku dhow laakiin labelku waa noocan isagu wada arkaysaa marka baaxtan addition ay isku noqonaya isagoo nooca weyn waa la kala jeexaya kii horna saasa loo kala barayay kana saasa loo kala jeexaya intaas mailinka ku jira intaan arkay ugu muhiimsan start kuwana waa intan weyn labadan oo ku dhex jira iyo in kale oo sida letters kan yar iyo waraqa review ben raacin karnaa review iyada spelling grammar baa ku jira marka doonaysid spelling grammar erayada English hadda tan waa Latini laakiin imaka good baa qoraysaa good waxa qoraysaa fiican markastoo fiican qor waxaad leedahay iigu dar fiican wada aragtaa check grammar bookayga wuxuu kaaga in qaldin laakiin hadda eraygan de waa Soomaali teacher baan qoraynaa teacher marka dan teacher imka check grammarka marka la sameynayo ayaa eray baa la dul geeyaa marka hore eraygaad soo qoraysaa kan qoraysaa eraygaad qoraysaa ku weynayso waan ku arkayna imka teacher markaas wuxuu qoranayaa teacher marka soo sameysaa tegaysaa ayadoo wax tegaysaa review markaas oo nasaa spell check teach waa eray jiro weyn isagu eray laakiin kuma hayo teach waa sax laakiin eraygii qaldan buu ku sheegay waxa laga dijiyaa research erayada markaad rabto erayada isku midka very important weyn imka teach baad rabtaa inaad raadiso teach ku raadinay search mino sameynaya waa educate waa intaas oo dhan bila macnta bulay markaad rabto erayga aad rabto halka inta reviews oo gasho ayaad kan tagaysaa kana waa buug weynaa English ka waa kan weeyaan isagu halka markaad tagto kan baa automatically soo qabsanay buugga English kana waa translate isku tarjumida luqadaha hadda Faransiis iyo English ka isku tarjumisa teach imka hadda teach haduu hayo way shaqeynaysaa laakiin haddii aanu hayn Spanish ma shaqeynayso marka luqadaha isku tarjum bay ugu talagalay inta ugu muhiimsan waa inta hal shay baa ku xiga protect document sidaad warqadaadan ugu xidhaa sida Excel ku arki doono password marka doonayaan ku xidhaa xalay restrict marka restrict raahdo ayaga imka waxa la yahay restrict marka saaw raahdo ayaa waxa la yahay limited marka saan format waxa dhan kadib marka saaw sameeyay la yes markaas uu ku leeyahay password kii maxaan sameeyay halka ugu sareysan markaan doorto ayaan waxaan leeyahay waxba laga bedel karo no change everyone baan la raacinaya qof kasta ma waxa ka bedel qof password geeyo mooyaan kadib baan yes leh markaas aan ku qoriyo password Ahmed Tamsalo Ahmed adana ku raalniya Ahmed markaas aan okay leh hadda markaas taa wax ka bedel hadda imka mesela waa protected hadda markaas taa wax ka bedel meel kaliya to shaqeynaysa ma jirto arkay halka mooyaan intan wax bedelayso dhan midabkan iyo waxaan ma shaqeynaa meel kaliya laakiin marka la stop wuxuu leeyahay geli password markaas aan leeyahay Ahmed oo ku caadin ku shaqeynaa qaybtaas iyo reviewdan ugu muhiimsan iyadoo qaybtaas aan kugu soo celiyay hal mar marka ugu horeysa marka rabto inaad ciido gelin qadaada waxaad tegaysaa halkan baad tegaysaa restrictive formatting and editing baad leedahay marka limited
haddaad kuwan tigta ka saartana kuwana waxaa leedahay waxbaba no waxa la soo gelin kara xataa misaad leh markaasaad leedahay yes hadda qor password 1 2 3 wuxuu leeyahay geli password isku meel waad arkaysaa haddaad enter sidaas haddana markaasaad 1 2 3 markaasaad saa u qoraysaa markaad eeg meel keliya aad oo shaqaynaysaa hadda ma jirto waad arkaysaa intaa waxaan ahayn laakiin intii wax bedelayso dhan ma shaqaynaya markaas leedahay stop markaasaa 1 2 3 waad gelisay waa qalad buu leeyahay haddaan qabto markaas eeg haddaan 1 2 geliyo wuxuu leeyahay the password is incorrect markaa mid saxan gelinaya 1 2 3 the password is incorrect buu leeyahay markii aanu qaadnay markaa waxaad gelinaysaa 1 2 3 haddaan mid kala geliyay inuu leegi doono insha Allah waa ka okay marka sax inaga fur marka halkan marka waxaan saarto limiterka waxa weeyaan meelo cayiman weeyaan laakiin tan waxba lama bedeli karo marka filling in forms ya doonaysa marka halkaas in ku koobanaa waxayna hadhay goobtaas kaliya goobtan hal 10 baan ka sameeynaa insha Allah halka inuu joogo